السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالية أو شرفت بدن وإذن سلامي وحايدين لياهي مالين وناكسن مركو هوري maanta waxaan rabaa inaan idin sameeyo potato gratin with the chicken legs insha Allah waa potato lagu kariyey caano iyo maaragtay cheese iyo chicken ko grill hoos la oven gareeyay insha Allah waxaan ku darayaa chickenka tandoori masala insha Allah waa xabaajigan hadda aad meesha kaga jeedaan waxaa kaloo ku darayaa in yar oo basbaas gaduud ah huruud yar iyo waxaa ku darayaa toon iyo garlic garlic iyo sanjabiil iyo aan ku darayaa maraq digaag insha Allah waxaan rabaa inaan chickenka horta waa inaan la sarsaraa because wixii oo dhan hoosta ay kaga galaan lafaha kaga galaan then waxaan kaloo ku darayaa insha Allah wax yar olive oil ah ayaan ku darayaa iyo wax yar oo hani ah waa isku qasayaa markaan isku qaso wax yar waa la dhigayaa ilaa 20 minute oo kale marka kadibna ovenka la gelinayaa waxaa loo geynayaa haduu rabbi idmo 270 loo geynayaa kor iyo hoos insha Allah kadib markuu ku jiro 40 daqiiqo oo halka ku jiraya ilaa 20 minute camal markuu ku jiro wax yar iska yar dabka hoos u yara dhig ka dhig 220 ama 230 meelahaas oo kale insha Allah sida chickenkana kaaga gubanin insha Allah waxaa kaloo sameynayaa baradhadii caadiga normalka ah jarjaraa cream double cream aan halka ku haystaa waa caanaha double cream kala dhaho iyo full milkiga caanaha buluga ah caanaha caadiga lo'da ah marka intaas la isku darayaa inta horta waxaa lagu shubayaa maraq digaagka iyo in yar oo toon in yar oo sanjabiil ah ayaan ku qasay iyo wax yar filfil cadaan ah ayaan baradhadii ku qasay marka ku qasay iyo waxa ku daray maraq digaag aan ku daray halkaas ku shubay ovenkan geliyay ovenka markaan geliyay haddana waa kasoo saaray 10 minute waxaa ku daray caanaha iyo creamka double creamka ayaan korka kaga shubay saa ugu jeedaan pictureka kadibna ovenka ku xareeyay marka asagana wuxuu ku jirayaa haduu rabbi idmo ilaa 40 daqiiqadood benis hadaa aragtid inuu caanihi ka guray oo maaragtay dry uu soo noqorabo baradhada waxaa sameynaysaa mozzarella mujeedaa mozzarellada hadda idin tusinayo iyo waxaa ku daraysaa jiista caadiga naturalka ayaa korka kaga shugaysaa saas oo kale marka ovenka lagu yara celinayaa haddana marka ilaa uu ka gaduuto sidaas oo kale uu ka noqdo marka baradhadan aad ay u macaan tahay ilmahana nafaqo badan ay u tahay lafahay dhistaa baradhada sideedaba marka waxa idin leeyahay caruurta u sameeya wayna jecel yihiin insha Allah chickenkana soo ka soo baxay waa aragteen saxankeenina saas oo noqday chickenkana waa ka digaaga saas oo macaan yahay oo aragtaa wixiisii dhan lafaha ka galay baradhadana waa taa waana ku mahadsantihiin salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh